khilaafka aniga iyo madaxweynaha wax cusub ma aha waxaan aniga aaminsanahay in khilaaf weyn uu ka dhaxeeyo asiga iyo dadka muslimiinta ah khilaaf weyn uu ka dhaxeeyo asiga iyo dadka qaxootiga wadankaanayda ku ah khilaaf weyn inuu ka dhaxeeyo asiga dadka madowga ah khilaaf weyn inuu ka dhaxeeyo asiga dadka dumarka ah marka aniga waxaan ahay qof dadkaas oo dhan wada matalo ani asiga in aan iskhilaafno isku dhacno wax bar horeeta aan ka hadlayo hadda ka hor waxaan dhahay nightmare-kiisa aan u ahay aniga waxaan u malaynayaa in dadka hadda le ay dareemoyaan laakiin khilaafka naga dhaxeeyo waa wax waqti badan socday halistaas waxaan u malaynayaa in dadka badanaa ay dareemi karaan in sida madaxweynaha uu u hadlaayo in ay keentay dadka badanaa oo hadda xabsiga ku jiro oo daraaday loo xiray oo rabay aniga inay idilaan kulligood waxay dhaheen madaxweynaha aan taageersanahay oo madaxweynaha magaciisa aan ku hadlaynayo madaxweynaha magaciisa aan rabnaa in aan ilhaan ku dilno laakiin haddii aan si kaleeta aan u fiirino madaxweynahanaydi dadka aniga aan matalo nafsadooda badankood uu halis geliyey muslimiinta sidii uu noloshooda inta ilaa iyo wadamada kaleeta dadka kasoo ordayay halis buu geliyey wuxuu suubiyey muslim ban oo suubinaya in dad muslimiin ah wadamada ay ku rafaadsan yihiin in fursad u heli karin wadankaanayta inay imaadaan waa aragtay halista uu gelinayo dadka qaxootiga ah hadeertaan oo wadanka rabaan inay soo galaan halista uu geliyey dadka madowga ah iyo dumarka sida uu uga hadlo halista ay keenayso marka waa qof aanan ka fikiraynin hadalka uu isticmaalayo iyo dhibaatooyinka ay u keeni karto dadkii uu ka dhigo inay cadow yihiin oo kaleete anigana waxaan aaminsanahay in waqtigii aan soo gaarnay oo ay tahay madaxweynenimadiisa inaan ka qaado